bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa warbaahinta xogta dalka qodobada aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxa ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ansixiyay sharciga batroolka dalka oo horay ay muran adag kaga keeneen qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka qaar kamid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Jubbaland oo ka hor yimid hadal ka soo yeeray madaxweynaha maamulkaasi faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dagaal xoogan oo ciidamada dawladda iyo xarakada al-shabaab ku dhexmaray deegaano hoostaga gobolka Bakool gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran oo dalbatay in la dejiyo xarun ka bedelan mid haatan uu ku shaqeeyo guddigaasi maamul goboleedka Jubbaland oo soo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu ka soo goostay xarakada al-shabaab akhbaaraadka dibadda ee xogta dalka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo mar kale u goodiyay dawladda dalka Iran iyo in ka badan 10 qof oo lagu toogtay baar ku yaala gudaha dalka Brazil mar kale daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa maalinimo isniin taariikhduna waxay ku aasaysan tahay 20ka bisha shanaad ee May 2019 intii aad daawateen waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka warbaahinta xogta dalka iminkana u diyaar garooba qodobadaas oo intaas ka faahfaahsan aynu ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharciga batroolka kaas oo horay muran adag kaga keeneen qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa kulankooda 16aad ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kulanka golaha ayaa maanta waxa soo xaadiray 154 xildhibaan waxaana ay ansixiyeen xeerka batroolka dalka oo horay muran adag ay kaga keeneen madaxda maamul goboleedyada dalka xildhibaanada golaha shacabka ayaa codeyn gacantaaga waxay ku ansixiyeen xeerka batroolka 150 mudane ayaa ogolaatay ansixinta xeerkaas waxaana diiday 4 mudane iyadoo aysan jirin wax xildhibaan ah oo ka aamusay xildhibaanada golaha shacabka ayaa haatan waxay si weyn uga doodi doonaan sharciga lagu dhisayo guddiga lagula dagaalamayo arrimaha musuqmaasuqa madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jirta ayaa sharciga batroolka hore u diiday iyagoo sheegay inaan wax wada tashiye laga gelin isla markaana xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku tagrifashay sida ay hadalka u dhigeen asaatee madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa xukuumadda federaalka ayaa guud ahaan beedaas meel iska dhigay iyadoo xildhibaanada golaha shacabka howlahooda ay si caadi ah u wateen xilli ay maanta ansixiyeen xeerka batroolka ee kulanka golaha shacabka Soomaaliya maanta lagu ansixiyay dhanka kalena maamul goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu ka soo goostay xarakada al-shabaab wasaaradda amniga dawlad goboleedka Jubbaland ayaa warbaahinta u soo bandhigtay sargaal sare oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa xarakada al-shabaab balse isku soo dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo ku sugan deegaanka Baarsanguuni la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose sargaalka ayaa wasaaradda amniga Jubbaland waxay magaciisa ku sheegtay Sharmaarke Cabdinaasir Axmed isla markaana muddo 10 sano ah kamid ahaa xarakada al-shabaab si gaar ahna kaga tirsanaa kooxda loo yaqaan jugta culus ee fulisa weerarada ka dhanka ah ciidamada dawladda iyo kuwa amisom sida lagu sheegay warka ka soo baxay dawlad goboleedka Jubbaland afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim ayaa sheegay in sargaalkaas uu kamid ahaa saraakiisha shabaab ugu sareeyay isla markaana uu isku soo dhiibay deegaanka Jamaame hase yeeshee uu ka dalbaday in shacabka Soomaaliyeed ay cafiyaan maadaama sida uu hadalka u dhigay dhibaatooyin horay ugu geystay sida ay sheegeen maamul goboleedka Jubbaland waxa ugu baaqay dhalinyarada kale iyo xubnaha ka tirsan xarakada al-shabaab inay ka soo baxaan isla markaana isku soo dhiibaan ciidamada dawladda iyo kuwa Jubbaland isla markaana ay soo dhaweyn doonaan waa sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland marka laga soo tago wararka ka soo baxay wasaaradda amniga Jubbaland ay sheegay in sargaalkan uu soo goostay ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijin kara sidoo kale xarakada al-shabaab ayaan wali wax war ka soo saarin sargaalkan la sheegay inuu ka goostay al-shabaab ay isku dhiibay ciidamada dawladda muddooyinkii ugu dambeeyay waxa soo kordhay maamulka Jubbaland dadka ay soo bandhigayaan kuwaas oo sheegaan inay yihiin rag ka soo goostay al-shabaab isla markaana u soo wareegtay dhanka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya xilli deegaanka ka tirsan Jubbaland ay wali gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab qaybaha dhexe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysan saaxiibayaal iminkana Jubbaland qaar kamid ah dadka u tartamaya musharaxiintana u ah madaxtinimada dawlad goboleedka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay hadal lawaan ka soo yeeray madaxweynaha maamulkaasi mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa walaac ka muujiyay habka loo doonayo in loo soo xulo xildhibaanada cusub ee maamulkaasi isagoo ka warbixinaya kulan ay yeesheen golo ay ku mideysan yihiin qaar kamid ah
musharaxiinta madaxtinimada Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay ka digayaan faragelin lagu sameeyo habraaca doorashada. Waxa uu sheegay xildhibaanku in golaha ay soo dhaweynayaan in odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta Jubbaland loo madax banaaneeyo soo xulista xildhibaanada hase yeeshee sida hadda ay wax u socdaan aysan ahayn waxay horay uga digayeen isla markaana yihiin waxyaabaha ay digniinaha horeyba uga soo saareen. xildhibaanka ahna musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu tilmaamay in golaha ay ka soo horjeedaan qaabka xulista xildhibaanada ee hadda loo wado taasoo ah in beel kasta ay guddiga doorashooyinka u soo gudbiyaan 3 musharax oo u tartamaya madaxtinimada maamulkaasi isla markaana xildhibaanada baarlamaanka qayb ka noqonaya si midkood loola dhaxbaxo. xubna ka tirsan musharaxiinta oo dhawaan warbaahinta la hadlaya waxa ay sheegeen in qorshaha xulista baarlamaanka Jubbaland uu yahay mid uu wato madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana uu ku daneynayo in dib ugu soo laabto doorashada Jubbaland ayaa waxa ay soo tarayay isqabqabashada iyo sidoo kale dhaleeceynta ka dhex jirta xilli madaxtinimada Jubbaland dadka u tartamaya intooda badan ay tilmaamayaan in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu daneynayo dib u soo laabasho xilli musharaxiintu ay daneynayaan iyo dadka shacabka sida ay tilmaameen iyagu in isbedel uu ka dhaco deegaanada Jubbaland. dhanka kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada dawladda iyo xarakada al-shabaab ku dhexmaray deegaanada hoostaga gobolka Bakool. wararka naga soo gaaraya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in degmadaasi ay weerareen xarakada al-shabaab. iska horimaad muddo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo al-shabaab ayaa ka dhacay qayb ka mid ah degmada Waajid. dagaalka ayaa ka bilowday saldhig ciidamada militariga dawladda ay ku lahaayeen Waajid oo ay weerar ku qaadeen xarakada al-shabaab waxaana la maqlay rasaas jihooyin kala duwan oo magaalada ah ka dhacaysay. dad ku sugan Waajid ayaa sheegay inay maqlayeen isweydaarsiga rasaas xoogan oo ciidamada dawladda iyo xarakada al-shabaab ay isku adeegsanayeen. dhinacyada dagaalama ayaa la soo sheegay in qasaare dhimasho iyo mid dhaawac uu soo kala gaaray inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah ee qasaaraha. waxaa jira dad shacab oo iyaguna ay rasaasta ku haleeshay guryahooda waxaana la qaaday loo qaaday goobaha caafimaad ee magaalada ku yaala maadaama dagaalka xilliyada uu socday aysan suurtagelin in dadkaasi goobaha caafimaad la geeyo. saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in ciidamada iska caabiyeen dagaalkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku leeyihiin dhinaca koonfureed ee magaalada Waajid. ciidamada dawladda ayaa tagay xaafadihii dagaalku uu ka dhacay waxayna halkaasi ka sameeyeen howlgallo kooban oo saraakiishu ku sheegeen inay ku soo raadiyeen xubno ka tirsan al-shabaab. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa saraakiil ciidan oo maalinimadii shalay kula kulmay magaalada Baydhabo waxa uu kala hadlay howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo ciidamadu dawladdu ka sameeyaan deegaanada maamulkaasi xilli dagaalkuna uu ka dhacay gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Waajid iyadoo al-shabaab iyo ciidamada dawladda dagaalkooda la sheegay inuu ahaa mid xoogan isla markaana qasaare kala duwan ka dhashay. qaybaha dambe ee warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysan saaxiibayaal iminkana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare ayaa dalbatay in laga raro xafiiska haatan uu ku shaqeeyo guddigoodu. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare ayaa sheegtay in baarlamaanka ay ka codsanayso in guddigooda loo dhiso meel ka duwan halka ay haatan ku shaqeeyaan. waxay sheegteen goobta ay ku shaqeeyaan amni ahaan ay wanaagsan tahay balse sababta ay ugu guurayaan ay tahay in aan furneen la kulmida xisbiyada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Xaliima Yare ayaa intaas ku sii dartay qorshahoodu uu yahay helista meel ay ugu degsiman yihiin dhammaanba dadka ay la kulmayaan waqti walba oo ammaankeedu uu hagaagsan yahay sida goobta ay haatan ku shaqeeyaan amnigeedu u sugan yahay. dhanka kale waxa ay sheegteen madaxda maamul goboleedyada inaysan ku dhawaaqi karin doorashooyin cidda looga dambeeyana ay tahay guddigooda isla markaana guud ahaanba wixii doorasho uu hoostagayo guddiga doorashooyinka madaxa banaan. guddiga doorashooyinka madaxa banaan ayaa ku shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya oo ah goob ammaankeeda aad loo adkeeyay isla markaana ay adag tahay in dadka ay galaan waqti walba maadaama madaxda dalka halkaas ay degan yihiin. sida daraadeed ayay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan waxa ay dalbatay in goobtaasi laga raro isla markaana la geeyo goob ay amnigeedu sugan yahay sidoo kalena ay kula kulmi karaan cid walba wax kaga soo baahato guddigaasi. saaxiibayaal warka warbaahinta xogta dalka ayaa daawanaysan akhbaaraadka Soomaalida ayaa intaas kaga gudbeynaa iminkana dibadda. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dagaal iyo burburin ugu goodiyay dhigooda dalka Iran. maalmo kadib markii Donald Trump sheegay inuu isku diyaarinayo wada hadal uu la galo Iran ayaa waxa uu haddana soo saaray absigelin doos ah oo ku socota Iran isagoo sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga Iran uu burburin doono. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu madaxweynaha Mareykanka ku sheegay haddii ay Iran doonayso dagaal
taasi waa wax rasmi ahaan noqon doonta dhamaadka Iiraan waa sida uu hadalka u dhigay Trump waxa uu sii raaciyay in Iiraan la burburin doono haddii ay soo weeraraan dhinaca Mareykanka ee gobolka waxa uu ugu baaqay Iiraaniyiinta inaysan mar kale cabsi gelin Mareykanka sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi ugu dambeyntiina in ka badan 10 qofood ayaa ku geeriyooday weerar toogasho oo ka dhacay baar ku yaala gudaha dalka Brazil ugu yaraan 11 qofood ayaa lagu dilay baar ku yaala magaalada Belém ee gobolka Pará ee dalka Brazil sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi dablay tiradooda lagu sheegay 7 qof ayaa la sheegay inay gudaha u galeen baarka laga cunteeyo kadibna ay toogteen ugu yaraan 11 qofood oo ku sugnaa gudaha baarka dablayda ayaa la sheegay inay ku baxsadeen 3 gaari iyo mooto markii ay geysteen falka kadib afayeenka maamulka gobolka Pará oo lagu magacaabo Natalia Melo ayaa xaqiijisay in halkaasi ka dhacay wax u eg xasuuq iyadoo hadalkeeda iyadoo dadka lagu dilayna ku kala sheegtay 6 haween ah 5 nin iyo sidoo kale qof kale oo garaab ama xaaladiisa ay xun tahay toogashadan ayaa ku soo beegantay xilli madaxweynaha dalkaasi Brazil Jair Bolsonaro dhawaan uu saxiixay sharci dadka dalkaasi u fasaxaya in hubka iyo sidoo kale qoryaha dalkaasi ay ugu isticmaali karaan isla markaana u qaadan karaan si caadi ah guud ahaan saaxiibayaal qodobkaasi dibadda ayaa u dambeeyay war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaraad ka daawanayseen xogta dalka waad ku mahadsantiin daawashada warkeena samugaanina in wararka warbixinada iyo barnaamijyada halkan aan kugu soo gudbino si aad u ahaataan kuwa ugu horeeya ee hela aad kanalkan saartaan subscribe tan kulan dambana nooli kulanta nabadiina saaxiibayaal